Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga waa idin salaamay salaan kadib waa anigii oo soo laabtay in muddo aan maqnaa meeshaan jiray iyo xogtaasoo dhan xagga dambe baan idinku sheegi doonaa safar dheer baan galay kole safarka dheer meeshaan ku aaday iyo xogteeda iyo waxoo dhan baa idin hayaa laakiin maanta maxaa idin wadaa maanta waxaan idin wadaa wixii hore wax ka xiiso badan waxaan idin wadaa waa kiiskaasoo ka dhacay wadanka Bulgaria yar wuxuu ku dhacay Jarmala oo dhalinyaro ah kiiska waa idinka dabageyn doonaa laakiin ma jeceshihiin kiisaska iyo waxyaabaha inaan idiin soo badiyo aan idiin keeno mise waxaad doonaysaan waxyaabaha qaraaxada iyo qosolka inaan idiin keeno taa idinkaaga soo jawaabi doonaa laakiin sheekada idin hayo maanta waxa weeye waa sheeko xiiso leh aan idinka dabageeyo horta ma qiyaasi kartaa inaad fasax u aado waddan kale adigoo faraxsan kadibna aad si lama filaan ah ula dhuumato adigoon raad iyo hifa midna reebin maanta waxaynu ka sheekaynaynaa sheekada Laris Mitank waa wiil Jarmal ah oo fasax u aaday dalka Bulgaria laakiin muuqaalkiisii ugu dambeeyay uu noqday mid caalamka oo dhan ka yaabiyey maxaa ku dhacay Laris miyuu dhuunta miyuu cararay ma jimbi isku bedelay ilaa iyo hadda lama garanayo laakiin sheekada xaggeeda dambe baynu ka ogaan doonaa wax walba iyo sida ay u dhaceen iyo waxa sababay iyo dhibaatadoo dhan meesha ay ka dhacday ma la afduubtay ma isagaa firxaday aanu dhuungalno kiiskan naxdinta iyo qarsoodiga badan sanadkii 2014 Laris Mitank oo 28 sano jir ah kuna noolaa magaalada Itzehoe ee dalka Jarmalka wuxuu fasax u aaday dalka Bulgaria isaga iyo saaxiibadiisa wax walba waxay u socdeen si caadi ah ilaa hal habeen ay dhacday arrin bedeshay noloshooda talo maxaa bedelay noloshooda wallaahi wax yaab la weeye laakiin aynu sugno inay ka hor dhicin Laris wuxuu qacan ka hadal dhex maray dad kale waxaana ka dhashay dhaawac dhegta ah dhakhtarku wuxuu Laris u sheegay inuusan diyaarad raaci karin ilaa dhegtiisu ka biskooto saaxiibadiis way bixeen isaguna wuxuu keligii ku haray Bulgaria halkan ayay arrintu isku bedeshay talo maxaa isbedelay Laris wuxuu degay hotel raqiis ah laakiin hooyadiis ayuu soo wacay isagoo argagaxsan wuxuu u sheegay hooyo halkan kuma badbaadi karo dad ayaa eryanaya hoteelka iga bixi hooyadii uu dib u soo wacay oo xasuusto iri bal hooyo iga warhay xaaladuhu way igu xun yihiin muuqaalka CCTV-ga ee hoteelka waxay muujiyeen Laris oo dhex soconaya hoolka cabsi badan baa wejigiisa ka muuqato wuxuuna u muuqdaa qof u haysta in qof kasta uu arko uu rabo inuu dilo wartalo yarkii maxaa ku dhacay waa laga yaaban yahay biyo mucjisi weeye 8 July 2014 Laris wuxuu tegay madaarka magaalada Varna si uu dhakhtarka madaarka u arko isagoo dhakhtarka la fadhiya waxaa xafiiska soo galay ninka shaqaynayay madaarka Laris isagoon hal erey oran ayuu kursi ka booday wuxuuna bilaabay inuu madaarka dhexdiisa ku ordo sidii qof waali ah wuxuu ka booday dayrka madaarka wuxuu galay duur weyn oo u dhow madaarka waana halkii ugu dambeysay ee indho bini'aadam ay ku arkaan Laris Mitank warniyo talow Laris maxaa qaaday ninka dhalinyarada talow maxaa asiibay saasoo dhan uu dadka uga cararayaa bal inuu aragno muddo 12 sano ah Laris lama arkin boqolaal qof ayaa isku dayay inay raadiyaan laakiin waa lagu fashilmay talow xaguu aaday ninkaasi isaga dhuuntay ma waxbaa ku dhacay xaalad baa sababtay ilaahu sahal inta waqaale maxaa naga galay hortay laakiin iska caadi dhib male bilaadanka dhan baa kulay waad iska oran kartaa in soo yar dhowaado dad waxay leeyihiin dhaawac dhegta ayaa saameeyey maskaxdiisa kuwo kale waxay leeyihiin maafi ayaa madaarka ka afduubatay qaar baa rumaysan inuu weli duurkaas ku dhex nool yahay isagoo maskaxda ka xanuunsan warna talo ma xaqiiq ba meelna tahay dadka maskaxda ka xanuunsan yahay ninkaasi ku dhex nool yahay kaynta 2014 ilaa maanta oo la joogo oo 2016 ma kula tahay in uu ku dhex nool yahay madaarka kaymaha dalka Bulgaria oo uu weli nool yahay taa idinka kasoo jawaabi doona
noona sheegi doonaa, laakiin idinka hor dhici mayno. muddo 12 sanaha Laris lama arkin. 100 qof ayaa isku dayay inay raadiyaan, laakiin waa lagu fashilmay. Dad waxay leeyihiin dhaawaca dhegta ayaa saameeyay maskaxdiisa. Wallaahi waa yaab. Laris Mtag wuxuu weli ku jiraa liiska dadka la raadinayo ee Jarmalka iyo Interpolka caalamkaba. Haddaba adigu maxay kula tahay? Laris ma noqon karaa mid weli nool mise waa la dilay? Qoraalka iigu soo qor fikirkaaga haygala bakhaylin inaad like, subscribe iyo share intaba aad ii saartid. Asxaabteeda aan jeclahay waan idin jecelahay aniguna waxaan doonayaa inaad meel fog i gaadhsiisaan. Midda kale waxaan idiin sheegay horta kiiska halkaas uu kusoo yaro joogsamay ilaa hadda waa la raadinayaa. Adiga maxay kula tahay kiiskaas? Waa kiisaska ilaa hadda loo waayay muxuu ahaayey meel la geeyo iyo wax dee lagu sameeyo, maadaama muxuu ahaayey wax badan ay kasoo wareegeen waqtiga. Warniyo horta safaraan galayna waxaan u galay qaaradda Yurub. Insha Allah aduu kulli horta maasha Allah hawlo badan iyo meelo badan aan maray oo ku guuleystay. Waxaa la yidhi kulley nin rag hadduu dhaqaaqo wax badan wuu xalliyaaye. Marka ilmaad reyaalow Soomaaliyey dhalinyaroy dadkaan jecel lahay asxaabta aan nahay waxaan jecelahay inaad meel fog gaadhsiisaan. Minanku waa minankiinii, gurigu waa gurigiinii. Lahjad walbaa idinkula hadlay. Aniga waxaan leeyahay nabadgeliyo ilaa intaan mid kale idiisoo doobi doono kiis kale oo isaguna kolley qurux badan baan hayaa. Haddeer kaas baan idinku sii xejin doonaa.